بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نبض وضيان ميل كستو جوجتان كسو دوادا عري دق ميديا ما أنت وحن جوجنا حفيزكا شركة عايمسكا بركة دنعي واحد فردية عبد الرزاق داير حسين أو مدح السوقينتا شركة بركة انشورنس أما شركة عايمسكا بركة عبد الرزاق ونقولين سو دوينا يا وحنا قوة رمي دونا شركة يا قابك الله أساسي وحيالله كشقين دونتا عبد الرزاق سو دو aad baad maasantay waan dhowyahay teamkiina xariidig aad baan ku soo dhaweynaya shirkadda caymiska Baraka Insurance shirkadda caymiska Baraka Insurance waxay ka mid tahay shirkadaha bixiya adeega caymiska waxaanay ka hawlgashaa deegaano badan iyo wadano badan ay ka mid yihiin Kenya, Soomaaliya iyo Somaliland hadda sanadkan cusub ayaa laga furay laga aasaasay waxaanay u taagan tahay in bixiso adeegyada kala duwan ee caymiska ay ka mid tahay adeega baabuurta adeega caymiska ee caafimaadka adeega caymiska ee safarka ay bixisaa waa tahay adeegyada faraha badan ay bixiso shirkadda caymiska ee Baraka adeega baabuurta oo kale isaga qayb noocyuu kala baxaa runtii adeega aan bixinay ee baabuurta laba kala baxaa waa mid la yiraahdo comprehensive iyo mid la yiraahdo third party comprehensive macnaheedu waxa weeyaan wixii shil aad gaarsiisid iyo wixii ku soo gaarba hadda aad shil gasho labada dhanba way ku damaanad qaadaysan maxay ahayd caymisbad iyo ku jirta haddii aad gashid third party ga waxaad ku jirtaa caymiska maxay dhanka saddexaad oo macnaheedu tahay wixii adigu aad gaarsiisid tusaale ahaan oo kale hadda shil gashid oo shilka cidi wax ku noqoto ama gaariga kale wax ku burburaan waxay ka kafar garanaysaa caymiska aad ku jirtaa wixii aad khasaare aad gaarsiisay maxay ahayd qofka saddexaad gaarsiisay iyo ka farqaynaysa ama ka cayminaysa maanta dadka ugu badan ee Soomaaliland aad ma fahansana arinta caymiska maalmihii ugu dambeeyay markii soo batay shirkadaha caymiska ama hay'adaha caymiska la sameeyay dadkii wax badan bay isweydiinayaan oo waxay leeyihiin waxaan ugu soo badanay dhaqamadii reer galbeedka iyo in noloshii dadka caafimaadkooda caymiska geliyo faa'iido noocyo ah bay u leedahay dadka ama bulshada waa runtahay horta su'aalo badan baa ka yimid markii la bilaabay hay'adda caymiska iyo shirkadaha caymiska gaar ahaan caymiska gaadiidka oo runtii wadankeena ku cusub aan hore loo isticmaali jirin horta haddaan dib ugu noqon taariikhda hore waa loo isticmaali jiray maxay caymiska gaadiidka oo dawladihii hore ee maxay ahayd Somaliland ka hor waa la isticmaali jiray dawladda hore Soomaaliya waxa jirta hay'adda caymiska qaranka loo jiray dadka qofka soo gaaray wataana wuxuu ku jiri jiray maxay ahayd caymisku ku jiri jiray laakiin mintii ka dambeysay dadku waxay u bateen inay ku noqdaan ninka soo gaaray wataa oo shilku gaarsiisto inuu kula noqdo reerkiisii muddadaas baa la ilaabay inaan maxay ahayd aan la isticmaalin dadku ilaabeen isticmaalka caymiska baabuurta laakiin waa adeeg horu jiri jiray oo dadku isticmaali jiray imakana maxay ahayd loo baahan yahay baahideedana jirto waxaa jira shilal badan oo ka dhasha maxay ahayd geystaan gaadiidku inta badan waxaad arkaysaa cuqaasha iyo intaas xalinaya gaadiid waxaad arkaysaa dad ka cabanaya shilalka yimaaday iyo maga ka timaaday gaadiid ayagoo dadka la weydiinaya magta aan shaqaba ku lahayn gaadiidkii oo markaas la oranayo maxay ahayd waxa soo bixisa maxay ahayd magtii oo hebel gaarigiisii geystay marka waxay meesha ay ka saaraysaa dadkii maxay ahayd inta badan ku tiirsanaa reerka marka cidii isku wax ahayd gaadiid wada lahayd inay khatartii wada wadaagto inta meel isku tagto deetana lacagtooda meel isku geeyaan ay yiraahdaan cidii ay ku timaado mushkilada aynu ku caawino taasi faa'iido u keenaysa waxa kale faa'iido u keenaysa shirkaddan waxay mas'uul qaadaysaa la iska wareegi lahaa ama marna sharciga la tagi lahaa qof ku shaqaysanay waxa laga yaabaa inuu wadooyin badan maro marxaladkii u tago mar maxkamadii tago laakiin shirkaddan waxay qaadaysaa inay xaggii sharciyada fududayso xaggii lacagta ay u hayso qiimayso marka hadduu qofku qaladka yeesho deetana si fudud ay looga bixiyo caymiski haddii qofku uu caymiski ku jiro isla markaana uu shil geli waayo gaarigiisa muddada intee laga horta ugu yar muddada waa su'aal muhiim ah runtii inta badan oo aad baa lana weydiiyay maxay haddii aan geliba weyno maxaa xal ah horta caymiskan aan oran bixina waa caymiska ku dhisan shariicada islaamka macnaheedu waxa weeyaan waxa la iska kaashanayaa khatarta lacagta la soo ururiyo meel baa lagu wada shubanaya dadka isku danta isku mihnada gawaadhida wata khatartii mid kamid ku soo waajahada ayaa lagu daboolaya marka sanad baa la galaa lacagta la soo ururiyo buul baa lagu ridaa
qof kamida dadka galay ku jira caymiska haddii khatar ku timaado ayaa laga bixiya haddii sanadku markuu dhammaado lacagta soo hadha waxaa laga sameeyaa in hadhowto ciddii doonaysa dib u gasho in discount loo sameeyo oo maxay ahayd lacagtii maadaama dibna la isticmaalay badna soo hadhay dib loogu celiyo la yiraahdo qofkii sii galayaana dib ha u sii galo oo lacagtii intaas ku hadhay oo dib loo ogeysiyo la yiraahdo intaas ayda hadhay intaasna maxay ahayd waad geli kartaa marka sanad la weeyaan sanadka waxa soo haray marka ayaa dib dadkii lagu celinaya lacagta marka dadku soo xareynaya waxa jirta lacag la yiraahdo lacagta maxay ahayd maamulka oo shirkadu ay ku shaqeynayso maadaama shirkadu u shaqeynayso khatartii lacagta waa laga jaraya laakiin lacagta ku jirta khasnada wixii soo haray dib ayaa lagu celinaya maxay ahayd dadkii sanad kadib dadka loo celinaya lacagta ma lacagtii guud ee la isku dadka inta laga isticmaalo banaan mise qofkii oo aniga oo kalaayo maanta haddaanan shilba gelin oo lacagtayduna sanadka aan dhigi lacagtayda weli waa la sameeyay shirkadu igu maamusho ma laga jaraya mise lacagta guud ee soo haray ma laga jaraya marka hore markaad gelaysid caymiska shakhsiyad ma gelaysid sanduuq baa lacagta lagu riday khatarta la wadaagaya ka soo qaad hadii mid idin kamid uu shil galo waxaad aad balan qaaday in qofka lagaga bixiyo marka hadii wax soo haraana si guud baa loo wada leeyahay oo faa'iidina si guud baa loo wada yeelanaya waxa noqonaysaa adigu waa dadka shii hadaan gelin ba lacagtaas way baxday waa caymis baa ku jirta wixii soo noqdana si guud ba maxay leeyahay ku qaybinaya hadda dib u gal sanadka dambe hadda doonaysa dib u gashid wixii kaaga soo haray mooyaan inta kale ayaad ku darsa si uu si ku dhisatay marka waa baabuurta uun baa waa taas waa tagaadidka dhinacyada kale caafimaadka waxa kala bixinaa caafimaadkan bixinaa waxa weeyaan wixii lacag baad bixinaysaa tusaale kale family-ga amba shirkadaha waxay sameeyaan inta badan waxaan u shaqeynaa shirkadaha iyo hay'adaha wadanka waxay sameeyaan dadkooda inoo keenaan deetana waxaan u sameeynaa qiimeyn baan ugu sameeynaa dadoodan eegnaa caafimaadkoodan eegnaa deetana lacagta qabanaysa ayaan halkaa uga soo saarnaa kadib muddo ilaa sanadaba lacagtaas halka ku jiraysa qofkii wax soo gaaray amba xanuunsada ayaa laga daboolaa maxay lacagta halka ku jirta caafimaadka kale maxaa qaab nuuciyay noqonaysaa waxa inta badan dhakhtarada wadanka waxaan la leenahay heshiis baan kula jirnaa marka waxaan sameeynaa qofka card baan u sameeynaa uu ku leeyahay caafimaadkiisa iyo lacagta ku jirta iyo waxa soo dhan ay ku jirto kadib tan qofku wuxuu tagayaa dhakhtarkii wuu tagayaa dhakhtarada heshiiska aan kula jirno wuu tagayaa waxa la eegayaa marka cardkiisii iyo la isku eegayaa iyo qofka la isku eegayaa marka la arko lacagta ku jirta deetana waxa loo bilaabayaa hadii daweyn u baahan daweynta loo bilaabayaa hadii qalin u baahan qalinka loo bilaabayaa marka saasay ku shaqeysaa qaybta caafimaadka lacagta ku jirta ma lacagta qofku dhigtay baa mise waa lacagta guud ee la wada lahaa iyo qodhay haraad ku jira qofku isticmaali karo kale waxa weeyaan waa lacagtii tusaale ahaan kale hay'adaas oo kale lacagtii ku wada jirtay hadhowto waxa la oranayaa qofkiiba intaas ayaa loo dhigaya markaas waxa lagu leeyahay ka soo qaad qalitaanka intaas limitkiisu waa intaas daweyntiisu waa intaas maxay ahayd hooyada maxay ahayd umusha intaas baa lagu talagalay marka limit ayaa mid walba loo qorayaa maxay ahayd lagu talagalay marka waxa la eegayaa marka kaarka qof marka dhakhtarka tago lacagtii baa loo eegayaa deetana waxa loo intaas ku jirta intaasana ka fargaraysa oo iska isticmaali karo qofkii adeegyo badan oo u baahnaa oo caafimaad hadduu kaarka sito oo ma oran karo caymis ku jira dhowr adeegyo kala duwan baa laga qabanaya waxa jirta adeegyo aan la ogolayn oo marka aan kala heshiin dhaqaatiirta laftooda oo liista aanu siino oo waxyaabaha waxa jira dadku la tagaano aan daruuri ahayn tusaale ahaan kale waxa laga yaabaa cosmetic waxyaabo waxa laga yaabaa muraayadaha oo kale waxa laga yaabaa waxyaabo aan daruuri aan ahayn marka liistadana maxay qofka marka hore waanu fahansiinaa dhakhtarkana heshiis baan kula galaayo waxay ahayd waanu sii sheegnaa maalgelinta kale ama lacagta la dhiganaya caymiska lagu gelay intee bay noqonaysaa talo qofku intee lagu kala baabuurta waxaad u eegtaan kuwa waaweyn kuwa yaryar waxaa jira hay'adda caymiska qaranka waxay soo saartay waxaan isla garanay qiimo maxay ahayd cayiman oo iyadoo loo eegay gaariga maxay xadgiisa intuu leegyahay marka gaari kastaba wuxuu leeyahay qiimo go'an marka qiimahaas waxa lagu soo saaray oo kale gaariga maxay intuu jiray gaariga weynaa iyo gaariga yaraa loo eegayaa waxa la eegayaa maxay ahayd birtiisa loo eegayaa marka qiime marka qofka waxaan sameynaa koowaad inuu gaariga detailskiisa wuxuu ka kooban yahay sanadkiisa sanadku soo baxay jinkiisa xogta intaan helo deetana xogtaasaan qiimaha lacagta aan ka soo saarnaa lacagta dadku dhiganaya lacagtaas ma sanad kasta ay bixinayaan mise bil kasta ay qofku bixinayaan
lacagta inta badan caymiska gaadiidku waa sanad leh marka sanadkii baad sii bixsanaysaa marka sanad la weyn bil wax bil sanad 12 bilood marka 12 bilood baad maxay ku jirtaa waata cabdirasaaq aad iyo aad buu mahadsan yahay wuxuu faahfaahin naga siiyey shirkadda caymiska ee Barako iyo adeegyada ay bixiyaan ugu dambeyn bulshada maxaad ugu baaqaysaa idinka Baranka ahaan bulshada waxaan ugu baaqayaa caymisku runtii waxa weeyaan wax tar faa'iido badan buu leeyahay ummadda waliba haday noqoto gaadiidka khatarta gaadiidku aad bay fara badan tahay dad badan baa jeelasho ugu jira sababtoo ah shilal ay galeen dadku inta badan mag ku wada jiraan oo reerahooda ma wada awoodaan magtiina markii shilalka aad u bateen reeri ma wada bixin kara marka qaabka qura laga bixi kara waxa weeyaan in khatartii la wadaago oo la isku tago wax yar ba kugu soo hagaagaya sanadkii faa'iido badan way ku keenaysaa shirkadahana waxay taagan yihiin inay xaliyaan baahidaadii inay xaliyaan waxay wax badan oo marka hore kugu aad la rafan lahayd amba reer kon noqon lahayd in ay ku saxaan ay ku fududeeyaan bay ka xamaysan marka waxaan leeyahay in laga qayb qaato adduunkana runtii meel aan ka jirin jirto caymiska gabadhu meel aan ka jirin ma jirto wadan kasta dad tagtay waxa lagu oranayaa maxay waa qasab waa inaad caymiska ku jirtid waayo haddii aad cid wax geysatid waa in la raaco meel aad maxay ahayd sida u kabtid qof dhaawacaad geysatay ama dhimashadaad geysay meel loo raaco in la haatid Somaliland runtii waxay kamid tahay dhowrka wadan ama ay laba wadan ee adduunka aan lahayn caymis gaadiidka imankana kulli taas waan ka baxana waxaan noqon ku biirana adduunyada caymiska gaadiidka maxay ahayd uu ka hirgalay marka waxaan leeyahay faa'iido badan baa ku jirta laga qayb qaato maasan tahay kaasina waa Cabdirasaaq Daahir Xasan madaxa suuqgeynta shirkadda caymiska ee Barako oo aan maanta xafiiskooda ku soo booqanay barnaamijkan waxaa la socodsiintaa Nacima Cabdi Axmed intaan barnaamijka ku xigay kulmayno waa bahda carreeyada weydin leh. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.